السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتي شرفت لي وانيدين سلامي سلام كدب أخياري maanta waxaan rabaa inaan horey u sii wado cashirkii noo socday oo PHP ahaa qaybtiisii labaad inaan hore u sii wado. maanta waxaan rabaa inaan isla fahanno sidaan hore u soo sheegnay PHP da marka la joogo waxaad u baahan tahay SAMP, sidoo kale waxaad u baahan tahay browser inaad hesho configurationka SAMP-ka waxaan soo dhigayaa insha Allah linkiga. sidoo kale maanta marka waxaan rabaa inaan ka hadlo cashir yar oo ku saabsan variable-ka iyo data type-ka. So intaanan gudaha u sii galin variable iyo data type koodkiisa intaanan qorin, horta waxaan rabaa inaan isla fahanno waxa ay yihiin. So variables markii laga hadlayo are used to store data. Yani variable-ada waa sida weelka oo kale, waxaa lagu keydiyaa data-da, xogta lagu keydiyaa, sidoo kale data type-ka like sida string-ga, text-ga, numbers-ka iyo wixii la halmaalaba waxaa loo yaqaanaa variables. So variables-kaas waxay ku kala duwan yihiin, waan arki doonaa data type-ka ku kala duwan yihiin. So variable-adaas la keedinayo waxaa lagu keedin doonaa storage-ka, keedka. So sidoo kale PHP automatically converts the variables to the correct data type. Yes, variable-ada markii la joogo in PHP, variable-ada automatically correct waxay saxaysaa data type-kooda si automatically ah. Yani PHP-ga si automatically ah waxay u saxi doontaa data type-yada uu variable-ka leeyahay depending on its value. Waxay ku xiran tahay marka qiimihiisa. While halka C markaad joogtid ama C++ aad joogtid ee qasab kugu ahaan jirtay inaad qortid integer something like that, string something like that. tusaale ahaan hadda aan dhahno PHP waxaad qoraysaa variable name-ka, waxaad dhihi doontaa equal waxa uu yahay qoraysaa. waad ka tagi kartaa inuu string yahay, inuu saas yahay, waad ka tagi kartaa waxa uu yahay u assign gareynaa. That's why uu u dhahayo halkan PHP automatically converts the variable to the correct data type. يعني isaga ku aadinayo, laakiin waxay ku xiran tahay lagu value-ga qiimaha aad siisay variable-kaas. tusaale ahaan hadda qiimo integer siisay wuxuu u raadin doonaa inuu integer yahay. qiimo float hadda siisay wuxuu u raadin doonaa qiimo float inuu yahay. So sidoo kale markii la joogo after declaring a variable, markii variable la declare gareeyo ama declaration lagu sameeyo, yani la qeexo variable-ka wuxuu yahay la sheego, can be reused through the code. koodka gudihiisa waa lagu dhex isticmaali karaa. meel walba oo koodkaaga ka mid ah waad ku dhex isticmaali kartaa. The assignment operator-ka loo yaqaano equal used waxaa loo isticmaalaa to assign value to a variable. To assign in lagu siiyo qiimo, value in lagu siiyo variable-ka. tusaale ahaan variable aad qabsatay, variable-kaas qiimo si aad u siisid waxaa qasab noqon doona inaad dhahdid equal wuxuu leeyahay variable-kaas assigning qiimihiisa inaad siisid, assign aad u samayn doontaa. So variable-ka halaas waaye. sidoo kale waxaan ka hadli doonaa wax loo yaqaano data type programmatically waan u sharxi doonaa insha Allah. data type-ka muxuu yahay? data type-ka isna PHP supports total 8 primitive data types. PHP-ga markii la joogo waxay taageertaa ama ay support gareysaa 8 data type ay support gareysaa. maxaa kamid ah? waxaa kamid ah integer, floating point, number or float. yani number iyo sidoo kale string, sidoo kale boolean, sidoo kale array, sidoo kale object, sidoo kale resource iyo null. These data types are used waxaa loo isticmaalaa data type-yadan waxaa loo isticmaalaa to construct variable. يعني variable-ada in la isla wadaajiyo, construct isku xir waaye. يعني variable-ada in la daba dhigo si variable-ada loo ogaado waxa ay ahaan. So inta waxay ka wadaa marka fiiri, these data type are used to construct variables. يعني variable-ka waa weelkii constructor-ka waxaa lagula sameynaa waxa loo yaqaano data type-ka. So that's now let's discuss each or one of them in detail. waxaan ka hadli doonaa mid walba midka kale qaabka uu u shaqeyn kara aan ka hadli doonaa. laakiin horta waxaa qasab noqon doonta inaan soo dhameyno wax loo yaqaan variable
data type waan soo noqon doonaa insha Allah. So marka aan bilaawno marka programkeena si aan programku bilaawno sidaan hore u sheegnay programku wuxuu u baahan tahay lagu dhahay text editor. aniga hadda text editor kaan isticmaalayo waa Visual Studio Code Allah nooc walba isticmaali kartaa saddex text editor hadda hayaan mid waxaa la Sublime mid waxaa la midka hadda waaye Notepad++ Allah iyo midkan oo hadda aan programku ku qori doono midkan wuxuu zaid u taageeraa يعني scripting languages كسيدا JavaScript scripting language كسيفي عنه تاجره يعني هو program روح بدن عندها نسوي جيرنا so أنا كنا كوسمين دونا إن شاء الله so سي أنا وسميه وحن سميسن دونا folder كوران وسميستي folder كان وحن كوسو سميه folder ك إيشك وحن كوسو سميه desktop كان تجي دونا htdocs ka marka doona soo shaqeeyo meeshaan nagay okay htdocs kan wax kala ma ahan yani samp marka ku soo shubatid meesha uu yaalo haduu rabo siidu ada dooqa iska leh hadaartid siida ku shuban kartaa hadaartid diida geysan kartaa meesha aragtid drive diskiga kamid ah waa geysan kartaa so aniga waxa uu joogaa siida tusaalahan أنا إذا تسيو واتن هالكن سيد واتنا مركان أنصوغله local disk كده وحني ما عندنا samp سيدو كلو حنتي دونا ماشان يكورن تاعي htdocs تاسم كله فندونا folder هذا ماشان إياه لمرك folder كان رابينا project كده يارنو وحنقول دونا php lesson كان وحنقول دونا مرك code program php so si aan u bilaawno programka PHP markii la joogo programkan ama software kan waxaan leeyahay tusaalaan hadda waa kan folderkan fura meeshan jeeda button kan in new file ku qorantaan ku dhufanaa kadib fileka magaciisa aan baxsanaa tusaalahaan index.php dan aan isticmaalayo waxay noqon doontaa extensionka uu leeyahay PHP sidaan u wada naqaano waxaa laga soo gaabiyey okay tan waxaa ka macno tahay PHP means waa PHP extension keeda waaye so waxaan leenahay enter so wuu noo bilaawday waa ujeedaa halkan PHP index keeda bilaawday so si aan u bilaawno PHP programka si aan u fahanno PHP tagga si loo furo wax weyn ma ahan PHP tagga markii la furaayo saana loo furaa waa kan PHP tagga halaan la isticmaalaa كنا lagu soo xiraa it means php ifur kadibna ii xir meeshaan waxaan ku qori doonaa marka codeka variable-ka meeshaan aan ku qori doonaa so marka aan rabo codeka variable-ka inaan meeshaan ku qoro waxa khasab noqon doonto inaan naqaan wax loo yaqaan $sign wax kale ma ahan $sign-ka tusaale ahaan marka aad joogtid maadooyinka programming languages-ka sida C++, Java waxay fahmaan tusaale ahaan inaad dhahdid integer x equal 10 oo kale saas inaad dhahdid laakiin variable-ka hadda waxaa la raacsiiyaa markii la joogo in PHP $sign variable name-ka la sheegaa kadibna wuxuu leeyahay la dhahaa it means haddii aad $sign dhihin variable-ka yani programka PHP ma ku jirtid mana ku shaqeyn doono error-na ka imaan doono so si aan u declare gareyno waxaan qabsan doonaa variable $sign aan leenahay tusaale ahaan variable namekan waxaan rabaa marka inaan xog geliyo namekan markaan rabo inaan xog geliyo waxaan u gelin doonaa dhowr nooc xogta la gelinayo string miya xogta la gelinayo number miya xogta la gelinayo double miya xogta la gelinayo array miya xogta la gelinayo float miya waa qiimeysanahay waxa ay tahay so anaga waxaan ku bilaabi doonaa marka maadaama aan beginner nahay aan bilownahay waxaan ku bilaabi doonaa integer iyo string iyo float wixii la halmaana so name markaan dhaho wuxuu la egyahan leeyahay namekeyga waxaan ka bilaabi doonaa number aan ka bilaabno tusaale name magac waaye magacaan dhaano Axmed oo kale aan dhahan
okay markaan Ahmed dhaano waxaa khasab noqon doonto inaan semicolon ku soo xiro yani PHP waa case sensitive marka haddii aad semicolon ka tagtaa wuxuu ku dhigi doonaa tag semicolon la dhahayo ayaa ka maqan programkaaga so case sensitive waaye semicolon hadda waxaan dhahnay name wuxuu la mid yahay Ahmed hadda namekan weelkan ama variablekan oo la dhahayo name aan u baxsanay variablekan oo aan u baxsanay name variablekan name aan u baxsanay waxaa ku jiro xog la dhahayo Ahmed xog la dhahayo waxaa ku jirto xog la dhahayo Ahmed ama magac la dhahayo Ahmed ku jiro so si aan Ahmed kan u soo bandhigo laba qaab aan u soo bandhigi karaa markii la joogo PHP inaan print dhaho iyo inaan echo dhaho so si aan u soo bandhigo waxaan dhihi doonaa echo waxaad soo bandhigtaa maxaa la soo bandhigaa waxaan qori doonaa marka variable name-ka waxaan qori doonaa variable name waxaan leeyahay variable name semicolon aan leeyahay kadibna control S ama filekan tagi doonaa kadibna waxaan dhihi doonaa filekan tagi doonaa kadibna waxaan dhihi doonaa save markaan dhaho waxaan probeynaa marka programkan name inuu shaqeynayo in kale waxaa sida loo waco PHP-ga waxaa loo wacaa localhost portal 8080 uu yahay portalkayga so localhost programka magaca u bixinay ayaan kasoo koobiyeysan doonaa halkan programka magaciisa waa kan folderaha aan ka wadaa programka maan folderaha waa kas so folderaha markaan soo koobiyeeyo halkan aan geyn doonaa kadibna waxaan dhihi doonaa enter so indexka caadi u qaadan doonaa hadda meeshan waxaa lagu soo qoray marka inay ku jirto xog la dhahayo Ahmed xogtaan Ahmed yaa haayo waxaa haayo variable name-ka aan u soo bixinay name ayaa haaso xogtaas so xogtaan marka aan rabo in aan xog kale ku daro sida ugu dara wax kale ma sameynay Ahmed inaan ku daraan rabaa anada xog kale tusaale ahaan variable kale aan qabsanaa Ali oo kale ah wuxuu la mid yahay leeyahay ama variable this is waxaan dhihaynaa tusaale ahaan first name magaca ugu horeeyo iyo last name wuxuu la mid yahay Cusmaan oo kale so marka meeshan aad joogtid laba midkood waa samayn kartaa haddaad rabtid inta ku qori kartaa Cusmaan haddaad rabtidna waxaa samayn kartaa laba meel oo ku kala qori kartaa kadibna markii laba caayo waad isku dari kartaa see la iskugu dara aan fiirino so haddii waxaan soo bandhigaynaa echo name first name ka dhig meeshan maadaama aan bedelnay awal name ahaa hadda first name aan ka dhignay so si aan ugu daro variable kale laakiin aan xisaab ahayn waxaa la concatenation tusaale ahaan waxaa la isticmaalaa in PHP dot dadaan isticmaalayna dot so waxaan leenahay marka si aan ugu daro magacaan aan isku raacsiiyo dot string oo empty ah space aan ka wadaa it means magaca inuu isku xigsado ma u baahan yani inuu isku dhego ma u baahan waxaan rabaa inaan kala qaado tusaale ahaan Ahmed meeshaan ah inuu soo baxo tusaale ahaan meeshaan hadda waxaan ka rabaa inay soo baxdo Ahmed space Cusmaan saan inay soo baxdaan rabaa so haddii aan laakiin dhaho aan space bixin ama aan samaysanin wax space bixiya haddaanan samaysanin hadhow uu isku dhex darsami doonaa wuxuu noqon doonaa sidaan oo kale Ahmed Cusmaan sidaan oo kale u qormi doonaa marka mala fahmaayo waxa laga wado si ay magaca first name iyo last name uu u noqdo waxaan dhihi doonaa meeshaan dot yani waa ku dar string kale lagu daraayo number oo string lagu daraayo it means isku darida caadiga mathematical operation numerical operation ka ma ahan waa isku darida laba shay oo kala duwan in la isku xiro isku xirida la isku darid maahan tusaale in la isdaba dhigo in la isku xiro so hadda waxaan isku xirayaa marka f name waxaan ku xiray wax f name waxaa ku jira Ahmed ayaa waxaan ku xiray Cusmaan oo last name so sidoo kale waxaan ku sii xiri doonaa Cusmaan wali ma ku xiran meeshan space taala okay last name aan ku xiri doonaa dot aan leeyahay last name sidaan u qori doonaa ln name ahead laakiin waxaa khasab noqon doonta inaan dhahno dollar sign ka tagin si uu error kugu imaanin so hadda markaan refresh dhahno ama aan save garano control S aan dhahay kadib markaan refresh dhahno meeshan Ahmed qorneed laakiin hadda waxaa soo bixi doonto
أحمد عثمان. أوكي واجي وهذا فيري سبيس كما بحن موجودة سبيس ما بحن كوس وحا إيرارك كينا ما تقانين وحا إيرارك كينا وحا ماشان موجودة إنا سبيس بحد الربا كنترول اس له كدبنا ريفريش له واكاس فيري وكال خادمي سبيس وبحي لابو كالا سكت سو مركا أقياري ما أنت عشر كينا هلاس وكو إيجياي إن شاء الله حيسد حكت حيسدان إن شاء الله وحن كالي دونا سيدا نمبرو ليسكو بدرو sidoo kale waxaan ka hadli doonaa sida table wax loo geliyo xog insha Allah waxaan ku kulmi doonaa cashirka xiga haduu Ilaahay idmo insha Allah inta halaas aan ka kulmeyno waxaan idin kaga tagayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.